walaalaha Soomaaliyeed ee guud ahaan ku nool gobolada waqooyi waxaan leenahay waxa la gaaray waayihii iyo waqtigii caatifadii iyo maxaan ku raadayay dhibaatadii iyo wixii dhacay aan ka soo noqon lahayn oo aan u soo noqon lahayn dalkeena inuu mid noqdo oo midoobo dawladda Soomaaliya siyaasadeeda waxay tahay Soomaaliya oo mid ah iyo Soomaaliya oo degan labadaas in la helaa Soomaaliya oo mid ah dadaal Soomaaliya oo mid ah dawladdu dadaal badan ay u gashay wax kasta oo suurto gelinaya in aan midnimadaas gaarnana dawladda Soomaaliya inay sameysay diyaar u tahay haddii ay tahay inaan meel kasta u safarno iyo haddii ay tahay qof kasta Soomaaliya mustawa kasta ha jooga inaan la hadalnaa diyaar ayaan u nahay inaan la hadalno oon raali garayno oo midnimadii dalku dib isugu soo celino Soomaaliya oo mid aan helno taasina qiimo aan ku bedelanayna ma jiro laakiin waa mustaqbalka iyo aayaha dalkeena dunida maanta isu tagaysa ee isku imaanaysa ee qaarada ay isku tagayaan Soomaaliya dhowr gobol u sii kala qaybqaybsamaysaa khiyaar noo furan ma aha maanta si gaar ah waxaan rabaa inaan marka aan ula hadlo baaq u jeediyo walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolada waqooyiga Soomaaliya waxaan leenahay haddii ay shalay wax naga halaabeen maanta yaan wax kale ka weyn naga sii halaabin wixii shalay naga halaabayna aan saxno barrina aan wax badan oo wanaag ah gaari karnaa jirtee yaynaan gaarin nolosheenuna yaanan ku xirin oo aanay ka raaracsanin shalay wixii na soo dhaafay shalay waaye aragnimo iyo wax ka barasho ayay leedahay shalay waaye aragnimo iyo wax ka barasho ay leedahay berri aan u diyaar garowno berri qurxoon ayaa horteena ka muuqato oo aan qurxin karno yaanay naxanibin oo dib gacmaha nooga xirin wanaagana naga hor istaagin xumo shalay dhacay oo dadkii ka mas'uulka ah laga yaabo in badan oo kamidaba inay dhinteen oo maanta dunida ay ku nooleen yaanan xabsi ugu jirin oo u xabisnaanina waxaan leenahay mustaqbalka waa berri aan hore u soconno waxaan rabaa marka qodobka asagana inaan uga baxoon u sheego dadka Soomaaliyeed ee goboladaas ku nool guud ahaantood meel kastoo ay kaga nool yihiinba waxaan rabaa inaan u sheego dawladda Soomaaliya dhinaceeda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed dhinaciisa wax dhiba iyo xumaanaho idinka soo jira ma jiraan wanaag iyo mustaqbal qurxoon ayay Soomaaliya oo dhan aan la wada jecelnahay idinkuna Soomaalidaas aan mustaqbalka qurxoon la jecelnaad ka mid tihiin xaqani xumaan idinka ma soo jirtee wanaaga idinka soo jiraan leeyahay midowgii dhex maray labadii dal ee Somaliland iyo Soomaaliya 1960kii wuxuu burburay 18 May 1991kii lamana mahadin midnimadii Soomaaliyeed ee muddada dheer la naawilayay nasiib darro waxaa laga dheefay oo qura nacayb niyad-jab iyo naxal ku la dhex dhigay ummadii Soomaaliyeed ee hilowga iyo kalgacalka isu qabtay dhinaca kale sawirka xun wuxuu u qoysgooyay qaybihii kala reynayay ee mustaqbalka ku soo biir qaran weyn oo qarnimada Soomaaliyeed ku dhantahay haddii Soomaali wada noolaan kari weyday waxa aqalka fayoobayna faraya inaynu iskeed u kala laato haddii wax la wadaagi kari waado waxa furan in wax la kala yeesho sidaa darteed waxaan aaminsanahay in tala wanaagsan iyo talaba sax ay qaateen walaaladeedii Soomaaliyeed ee ku kala nool Djibouti, Itoobiya iyo Kenya waxaan jecelahay inaan ku hambaliyeeyo hibirada toosan iyo horumarka weyn ay ka gaadheen dadka Soomaaliyeed ku dhaqan dalalkaasi waxaana odag guud oo Soomaaliyeed oo ay araga uma aqaan inay tahay Soomaalinimadu siyaasad iyo sabab la wadaago hase yeeshee Soomaalinimadu waa Soomaalinimadu waa siji ka dhaxeeya ummad ballaaran oo aan dal iyo dawlad qura wada lahayn qowmiyadda Soomaaliyeed aanu ka mid ka nahay waxaa mideeya afka isirka iyo afka oo kaliya duco qabayaan marka dhagahayga ay ku soo dhacdo dhawaaqa Soomaaliya toos isku tiirsada jibadii qaadi jirtay iyo jirkiina dubaaxin jiray walaalayaal xididkii daramayaasha xambaarin jiray waa idinkii jaray jiridiisii waxaan leenahay Soomaaliyeed gobnamadii la gardaadiyey iyo gaawihii la xulay geelii dalka ahaa ee la isku siskay idinkaa guriyey gacalkayow
gacantiina ku gaagixiyey walaalayaal waxaanu nahay gob samirka iyo in la is ixtiraamo taqaan ma nihin dad cadha hayso mana nihin dad calool xun iyo ciil kama korayaal hase yeeshee waxaa habboon inaad garwaaqsataan xaqiiqda hortiinna taalla waxaa habboon inaad kala garataan shalay iyo maanta inay kala duwan yihiin dadka reer Soomaaliland waxaan idin leeyahay naftiinna ha ku maaweelinina mala awaal iyo been aan miscirintaan dhaafisnayn sidaa darteed dadka iyo dalka aan odaga u ahay idinma soo socdaan oo way tashadeen oo duca qabayaan idinkuna isku tashada oo aan kala turxaan la'aan walaalayaal murti Soomaaliyeed baa tiraahdaa dambuu reer guuraa haddii aanu ahayn shalay kuwii midnimada doortay oo isku darkii labada dal ka dambeeyey maantana waxaan door midnay inaynu noqon dal gaara waxaan dan moodnay inaynu kala noqono laba dal sidii aanu ahayn 56 sano ka hor waxaanu door bidannaa inaynu noqon daris wanaagsan iyo gacal istugsada oo nabad iyo niyad sami abad ku wada noolaada تقلدت جبتيو تيسور وجديو مركيو دعلد وجهك وبتشي قلوين ولا تقلدت جبتيو تيسور وجديو مركيو دعلد وجهك وبتشي قلوين dagaalka sokeeyo xolaadu inay danto kafaakaadani waqtigoona dunida ugu jecel dagaalka sokeeyo xolaadu inay danto kafaakaadani waqtigoona dunida ugu jecel digar waa kala rogtaa dowladda Soomaaliland waxaa lagu diiday
yahay haddii gacanku isturqumo tigana waa kala rogtaa dowladda Somaliland maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa ilmaha dusha lagu sidiyo hooyada ifaysane xaqoodii la duusiyay badbar ka dulheesaya ilmaha dusha lagu sidiyo hooyada ifaysane xaqoodii la duusiyay badbar ka dulheesaya أنا أريد وجعل إنك بحاط الميدة كان دولد وعن هلال لمدك ودان بلدقن أنا أريد وجعل عقول سوقمو وكلا ربتا دولد Somaliland maxaa lagu diidan yahay haddii gacanku isturqumo tigana waa kala rogtaa dowladda Somaliland maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa qaaqatiyo faafan iyo dolli gurigii afmadow ilaa iyo haradigeeda loo simaneeyalo qaaqatiyo faafan iyo dolli gurigii afmadow ilaa iyo haradigeeda loo simaneeyalo dulahaan soomaaliduba dadweeyaan ila dhasho wanaag baan la doonayaa anaa dunida ugu jecel dulahaan soomaaliduba dadweeyaan ila dhasho wanaag baan la doonayaa anaa dunida ugu jecel haddii gacanku isturqumo tigana waa kala rogtaa dowladda Somaliland maxaa lagu diidan yahay haddii gacanku isturqumo tigana waa kala rogtaa dowladda Somaliland maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa tuutidan dariska yaga ilaa dikhil weecayo degankii cali sabiix danta tujrayo tuutidan dariska yaga ilaa dikhil weecayo degankii cali sabiix danta tujrayo inuu rabbi daajiyo barwaaqa dibnaha dhiga dalkooduna horay u maro anaa dunida ugu jecel inuu rabbi daajiyo barwaaqa dibnaha dhiga dalkooduna horay u maro anaa dunida ugu jecel daadidinkuba dantiin dowladda Somaliland maxaa lagu diidan yahay haddaad idinkuba dantiin dowladda Somaliland maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa 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 dadkaygu hadduu tashaday
تشدري محلو دبا سعدا dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa